soo dhawaada saaxiibayaal wiilkiini sirta films bilowga sheekada waxaan aragnaa siinaysahanad lagu magacaabo Martinez taasoo iyada iyo laba xubnood oo ka tirsan kooxdeeda Robert iyo Tini ay yimaadeen magaalo yar oo ku taal Australia waxay heleen xog in fungus aad u khatar badan laga helay deegaankan waxaa la sheegaa sanado ka hor qayb ka mid ah dayax gacmeed burburay oo ay lahayd NASA oo ku dhacay halkan kadib saddexdooduba waxay xirteen dharka ka hortagga kiimikada waxayna daareen kaamiradaha jirka si ay u baaraan aaga oo dhan markii ay kooxdu baadhay aaga oo dhan waxay arkeen 14 guri iyo 12 gaari laakiin ma aysan helin hal qof oo nool ugu dambeyn waxay heleen taangigii Martinez waxay aragtay in dadka deegaanku ay isku dayeen inay ku nadiifiyaan dareere ka samaysan baradho iyo saabuun kadib Martinez ayaa weynaysiga u adeegsatay si ay si taxaddar loogu eegto taangiga markii ay in yar baadhay waxay fahamtay in isku darkii baradhada uu ku dhex daatay taangiga taasina ay sii korisay koritaanka funguska in yar oo biyo uu helo ayuu fungusku si xawli ah ugu tirmi karay isla halkaas Martinez waxay aragtay calaamad cagaaran waxay ku tiri Robert isku qabo si aan si dhow ugu eego markii ay si dhow u eegtay waxay sheegtay in funguska cagaaran uu koray oo isbedel sameeyay isla markiiba funguski ayaa dhaqaaqay oo ku soo booday dhankooda tani waxay keentay Martinez ay baqdo oo dib u gurato isla xilligaas Tini ayaa ku dhawaaqday inay heshay miid Martinez ayaa markiiba u tagtay laakiin ma aysan dareemin in yar oo fungus oo ku haray jeebkeeda funguski ayaa si tartiib u burburiyay hoostii kabaha wuxuuna bilaabay inuu gudaha u galo dharkeeda si kastaba ha ahaatee waxay saqafka sare ka heleen meed xabadka si xun uga dilaacay sidoo kale lafaha madaxiisa ayaa jabay oo kala baxay kadib Robert ayaa hareeraha eegay wuxuuna ogaaday in dhammaan dadkii deegaanku ay ku dhinteen saqafka guryahooda dhaawacyadooduna ay isku wada mid ahaayeen kadib Martinez ayaa soo saartay aragti ah in fungusku uu ku khasbay dadka inay koraan saqafyada halkaasna uu ku sugay ilaa jirkooda uu ka qarxo sida fungusku wuxuu si sahal ugu faafi karaa meelo kale isla markiiba madaxii ninka dhintay ayaa qarxay oo funguskii ka buuxay gudihiisa ayaa banaanka yimid intaas kadib Martinez waxay ku noqotay taangigii si ay uga soo qaado symbol waxay sheegtay in laga yaabo xilligii uu soo laabanayay taangigu inuu fungus galay qolofka taangiga taasoo macnaheedu ahaa in nooc cusub oo fungus uu dhashay kadib isla markii ay heleen symbolka kooxdu waxay bilaabeen inay baxaan laakiin intii lagu guda jiray waqtigan fungusku wuxuu horay u galay jirka Martinez waxay si lama filaan u dareentay kuleel aad u daran wax yar kadib waxaa ku bilowday dawaqaad xitaa socodkii ayaa ku adkaaday isla markiiba Martinez waxay matagtay fungus cagaaran iyadoo koofiyadeedu ay u xidhan tahay intaas kadib funguski ayaa si tartiib ula wareegay maskaxdeeda haddana waxay si isdaba joog ugu celcelinaysay hal eray oo qura ereygaas oo ah faafi kadib Martinez ayaa si degdeg ugu oraday dhanka gaadhiga markii ay arrintan aragtay Tini ayaa markiiba la soo baxday qorigeedii laakiin markii Martinez ay gaadhiga u soo waday dhankeeda Robert ayaa riixay Tini gaadhigii ayaana si toos ugu dhacay Robert isagoona si xun uga dhaawacmay dhabarka hadda xitaa muusan dhaqaaqi karin kadib Martinez waxay isku dayday inay Tini hubka ka dafto Tini waxay isku dayday intii kiraankeeda inay iska celiso laakiin way awoodi weyday ugu dambeyntii qorigii wuxuu galay gacanta Martinez laakiin isla daqiiqadaas Martinez ayaa in yar miirsatay oo garatay wixii ay samaysay isla markiiba waxay gaadhay go'aan aad u weyn Martinez ayaa iska furtay tombadii hawada ee suudhkeeda waxayna xabad iskaga dhufatay daloolkii suudhka si ay nafteeda u hurto oo ay uga hortagtay inuu fayrasku faafo dhowr saacadood kadib waxayna ragnaa in ciidanku yimaadeen magaalada si ay u ururiyaan symbol ka mid ah funguska isla markii ay baxeen magaaladii oo dhan ayaa la qarxiyay intaas kadib symbolkii waxaa la geeyay xarun aadamaan oo ku taal Ameerika halkaasoo la dhigay qaboojiye sidan ayaa sanado badan ku dhaafay si tartiibana fayraska waa loo ilaaway hadda waxaa la gaadhay sanadka 2026 goobtaasi hadda waxay noqotay shirkad wax lagu kaydiyo maalin maalmaha ka mid ah waxaan aragnaa in lagu magacaabo Travis oo ka yimid shaqada wuxuuna bilaabay inuu dhibo maamulihiisa oo lagu magacaabo Griffin wuxuu rabay in Travis uu caawiyo sababtoo ah wuxuu qorsheynayay inuu dhaco dhismaha laakiin Travis ayaa si toos ah u diiday Griffin ayaa u hanjabay ugu dambeyntiina Travis waxaa lagu qasbay inuu ogolaado inuu albaabka u furo kooxda tuugada ah fiidnimadii Mary waxay tagtay qaybteeda keedinta si ay u hubiso Travis ayaa waqtigaas halkaas joogay wuxuuna isku dayay inuu in yar la sheekaysto Mary laakiin Mary aad bay u degdegsanay markii Travis uu sii raacay wiishka wuxuu maqlay dhawaaq qaylo ah laakiin wuxuu u qaatay cilad farsamo oo yar dhinaca kale gudaha qaybta keedinta Mary waxay ka soo saartay qori kabaheeda dhexdeeda kadib waxay eegtay sawirka ninkeedii dhintay waxayna u niyeysatay sanad guuro wacan waxay rabtay inay isdisho laakiinse way awoodi weyday isla markiiba Travis wuxuu isla markiiba maqlay isla dhawaaqii markan wuxuu wacay gabadha cusub ee la shaqaysa Naomi wax yar kadib Naomi waxay timid hoolka laakiin maysan maqal wax dhawaqa kadib labadooda ayaa in yar sheekaystay indhaha Naomi waxay qabteen tattoo ku yaala jirka Travis isla xilligaas Naomi waxa u soo dhacay telefoon ilmuddo ay qofkii la murantay kadibna telefonkii way iska jartay laakiin isla markiiba waxay maqashay isla dhawaqii dhanka kale North Carolina Robert ayaa si lama filaan u helay wicitaan ka yimid dawladda marka hore wuxuu xaaskiisa u sheegay inay wax walba hagaagsan yihiin kadib wuxuu furay qisnadiisa isagoo kala soo baxay telefonkiisa dayax gacmeedka ee hore wuxuuna wacay saldhigiisii hore halkaas Abigail ayaa u sheegtay inay heleen digniin ku saabsan isbedel ku yimid heerkulka arrintan markuu maqlay Robert aad buu u cadhooday wuxuu yiri funguskan si fudud ayaa loo kala qaadayaa waan arkay awoodiisa aad
aad buu khatar badan yahay dhinaca kale xarunta kaydka Travis iyo Naomi waxay ogaadeen in dhawaqan uu ka imaanayo darbiga gadaashiisa dhanka kale Naomi ayaa mar kale la soo wacay waxayna u sheegtay inuu yahay aabaha dhalay carruurteeda kadib waxay soo jeedisay inay gidaarka jabiyaan si ay u ogaadaan meesha uu dhawaqa ka imaanayo laakiin Travis ayaa si cad u diiday waayo ma uusan doonayn inuu shaqadiisa waayo arrintan darteed intaas kadib Naomi waxay qiyaastay taatuuga Travis in laga yaabo inuu xabsi ka soo baxay si isdaba joog ayay u bariisay iyadoo la biliis aan eegna waxa darbiga ku jira ilaa uu Travis ka ogolaaday ugu dambeyntii Travis wuxuu soo qaatay qalab wuxuuna gidaarka ka sameeyay daloolkaas gadaashiisa waxay ka heleen qol qarsoodiya oo uu ku jiro nidaam kombiyuutar oo weyn kadib Travis ayaa galay si uu u eego laakiin Naomi ayaa markiiba garatay in kan yahay guddiga kantaroolka heerkulka kadib markii ay jabiyeen qayb kale oo gidaarka ah Naomi ayaa sidoo kale qolka la gashay Travis ayaa u sheegay in dhismahan ay hore u isticmaali jireen ciidanka militariga waxaa gidaarka ku dhaganaa khariirad Naomi markiiba sawir ayay ka qaaday markii ay aragtay inay hoosta ku yaalaan dabaqyo kale waxay doonaysay inay ogaato waxa meesha ku jira laakiin Travis wuxuu si buuxda u diiday arrintaas hase yeeshee Naomi ayaa mar kale bilowday inay ka dhaadhiciso ugu dambeyntii Travis si xanaaq ku jira ayuu u yiri anigu waagii hore dadka hadalkooda ayaan yeeli jiray arrintaas ayaana xabsiga ku galay markay arrintan maqashay Naomi markiiba way ka raali gelisay ku adkeysigeeda laakiin Travis wuxuu markiiba garwaaqsaday in haddii uusan raacin gabadhani ay aadi doonto isagoo uusan la socon sidaa darteed ugu dambeyntii wuu ogolaaday inuu raaco markii ay labadooduba wiishka hoos ugu dhaadhaceen iyagoo raacaya khariiradii waxay heleen albaab ku dhex yaala armaajo albaabka horeyba wuu xidhnaa Travis ayaa laad xoog leh ku dhuftay albaabka wuuna furmay gudaha waxaa ahaa qol kale oo qarsoodiya isla markii ay gudaha galeen muddo ilbiriqsiya waxaa dhawaaqay alarmi si kastaba markii ay hareeraha eegeen waxay arkeen qalab duuga oo la isticmaali jiray toddobaatameeyadii qalabkaas waxaa ku jiray dharkii Hatmas dhammaadka marinka waxay heleen meel laga galo jaranjaro hoos u socota markii ay hoos jaleeceen waxay ogaadeen in jaranjaradu ay aad hoos ugu qodan tahay sidaa darteed Naomi ayaa Travis u sheegtay inuu marka hore isagu hoos u dego ugu dambeyntii markii ay hoos gaadheen waxay heleen albaab ay ku qoran tahay DTR access only inkastoo aysan garanayn waxa uu yahay DTR haddana albaabkii ayay fureen gudaha waxaa ku yaalay qol xidhan iyo tumbo weyn ay ku qulqulayeen biyo baraf u eg gees ka mid ah waxaa jiifay jeerar uu daboolay fangasku si dhib leh ayay u dhaqdhaqaaqayeen sababtoo ah dabadooda ayaa isdhex gashay oo gunta isugu noqotay xitaa jeerarka qaarkood waxay bilaabeen inay iscunaan isla markiiba jiir ayaa ku soo booday Travisna si degdeg ah ayuu gadaal ugu gurtay dhanka kale Naomi waxay muraayadda albaabka qolka ka eegtay gudaha waxayna aragtay fangas la yaab leh oo ku faafay dhammaan gidaarka qolka sidoo kale in yaroo fangas ayaa ku dhaganaa albaabka laakiin isla markii ay Naomi damacday inay taabato Travis ayaa joojiyay kadib Naomi waxay sheegtay in albaabku uu kulul yahay markii ay arrintan maqleen labadooduba waxay go'aansadeen inay fiican tahay inay meeshan iskaga baxaan dhinaca kale ee bannaanka Mike ayaa dhiganayay gaadhigiisa si xanaaq leh ayuuna gacanta ugu garaacay steerinka kadibna wuxuu bilaabay inuu soo eego qorigiisa wuxuuna wacay Naomi halkaasna waxaa ka caddaatay inuu isagu yahay aabaha carruurteeda laakiin Naomi kamaysan qaban wicitaankii Mike ayaa uga tagay fariin coda halkaas oo uu ku qaylinayay sababta ay Naomi uga qaban weyday teleefankiisa wuxuu u sheegay inuu ku jiro dhibaato aad u weyn isla markiiba wuxuu bilaabay inuu codad ka maqla xagga dambe ee gaadhigiisa wuuna aaday si uu u hubiyo markii uu arkay albaabka dambe oo dhaqdhaqaaqaya ayuu baqay markii uu furay xagga dambe wuxuu ogaaday in bisadii uu haystay inay dhimatay ay dhab ahaantii nooshahay Mike ayaa raaligelin siiyey bisadda maadaama uu xabad ku dhuftay laakiin isla markiiba bisadii ayaa soo jeesatay waxayna muujisay in kala bar wejigeeda uu gaay fangaska dartiis hadda bisadii ayaa soo booday waxayna dhulka ku matagtay fangas kadib waxay kortay saqafka sare ee gaadhiga waxayna aaday dhanka anteenooyinka halka darafka anteenada uu kala jaray madaxeeda isla markiiba jidhkii bisada oo dhan ayaa qarxay dhiigeedii wasaqda ahaana wuxuu ku daatay meek iyo deeroyn meesha u dhowaa hadda fangaskii wuxuu si degdeg ugu faafay maskaxda Mike taasoo keentay inuu si lama filaan u dhaco uuna matagay dhowr daqiiqo kadib fangaskii ayaa la wareegay maskaxdiisa wuxuuna amar ku siiyay inuu raadiyo dad kale hadda Mike wuxuu fahmay inuu u baahan yahay inuu raadiyo Naomi wuxuu qaatay qorigiisa wuxuuna galay dhismaha deero dhaawacan ayaa iyana soo daba kacday dhinaca kale gudaha diyaaradda DTR Robert wuxuu daawanayay muuqaaladii dhimashadii Martinez kadib wuxuu wicitaan ka helay Wesley kaasoo noqday hogaamiyaha cusub ee waaxdooda Wesley wuxuu u qaatay in Robert uu aad uga fakarayo kiis xidhan ayna dhici karto in arrintani uu tahay cilad xagga fiilooyinka korontada ah arrintan darteed muran ayaa dhex maray labadooda kadib wicitaankii ayaa go'ay waxya kadib wicitaan kale ayaa ka yimid Abigail waxay u sheegtay inay akhrisay warbixintii Australia waxayna la safnayd Robert ayaa fariin u diray Tierney oo ku saabsan item server isla xilligaas Wesley ayaa arkay Abigail oo ku hadlaysa teleefankeeda gaarka ah Abigail waxay si dhaqso leh ugu cudur daaratay inay saaxiibkeed kala hadlaysay arrimo uur si uusan Wesley u dhibin waxaana ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo ilmaamtay inaad like saarto channelkan aad subscribe tiraahdo oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay waxaan saaranahay wadada ay ku gaadhi lahayn 20,000 oo subscribe adiga oo kaliya ayaana laga maqan haddii
haddaynu soo noqono muuqaalkeena dhinaca xarunta Travis iyo Naomi waxay internetka ka raadiyeen DTR waxayna ogaadeen inay macnaheedu tahay defensive radiation markii ay ka soo baxeen armaajada waxay la yaabeen inay arkeen deerigilaysa wiishka Travis uu fahmi waayay sida ay tani suurtagal u tahay kadib waxaa laynoo celinayaa waqti hore dab ahaantii sanado ka hor fangaskan wuxuu ka soo fakaday weelkii lagu xidhay wuxuu ka soo dhex baxay dalool yar oo albaabka ku yaala kadibna baranbara ayaa cuntay fangaskan waana ay qaaday cudurka kadibna jiir ayaa isku dayay inuu qabto fangaskiina sanka ayuu kaga dhigay baranbaradii waxay ka soo baxday tuumbooyinka hawada ilaa ay ka soo gaadhay wadada halkaasoo gaadhiga mayku dardaray isla halkaas ayuu fangaskii ka fuulay taayirada wuxuuna galay gaadhiga xaggiisa dambe sidan ayay dib ugu soo noolaatay bisadii dhimatay waqtigan xaadirka ah waxaan aragnaa Travis iyo Naomi oo u cararaya dhanka hoolka laakiin waxay arkeen deeradii oo ka soo baxaysa wiishka isla markii deeradii aragtay iyaga si toos ayay dhankooda ugu soo oroday Naomi ayaa si dirqiya u dhuumatay oo gees u soo jiiday Travis daqiiqadaasna jirkii deerada ayaa si lama filaan u qarxay geesaheeda ayaa go'ay oo gidaarka ku dhacay kadib meek ayaa ka soo baxay wiishka wuxuuna ku qaylinayay waxaan togtay bisadii hooyaday iyo aabahay laakiin ma garanayo sida ay mar kale ku soo noolaatay hadda wuxuu la soo baxay baaskoolad wuxuuna ku qayliyay inay afkooda kala qaadaan sababtoo ah wuxuu doonayay inuu fangaska qaadsiiyo isla markii ay arkeen Travis iyo Naomi ayaa markiiba cararay Mike-na wuxuu bilaabay inuu xabada ku rido dhawaaqa xabada ayaa Mary ka soo toosiyay hurdada Mike ayaa eryanayay labadooduna waxay ku dhuuntay mid ka mid ah qololka wax lagu kaydiyo laakiin dhibaatadu waxay ahayd albaabka ayaa cilladaysnaa si fiican oo muusan xirmayn isla waqtigaas Mike ayaa soo maray jidka laakiin muusan arkin si lama filaan ah toosh ayaa ka dhacay balse Travis ayaa si degdeg ah ugu soo jiitay gudaha Mike-na horay ayuu u sii socday labadooduna neef aad u weyn ayaa ka soo fuqday laakiin isla markii uu Travis dib u gurtay si kama ayuu wax u riixay taasoo dhalisay dhawaaq in yar kadib Mike soo laabtay wuxuuna gacantiisa soo geliyay gudaha si uu u qabto isla markiiba Travis iyo Naomi ayaa iska kaashaday si ay u xiraan albaabka ugu dambeyntiina way xiraan waqtigaas Mike wuxuu ku qasbanaaday inuu soo bixiyo gacantiisa halkaas oo farihiisu ay jabeen dhigna ka daadanayay kadib Naomi waxay bilowday inay internetka ka raadiso lambar ay caawinaad weydiisato dhanka kale garoonka diyaaradaha Robert waxaa soo doontay Tierney waxayna u sheegtay ka hor inta aysan aadin xarunta kaydka inay u baahan yihiin inay soo qaataan item server intaas kadib wicitaan ka yimid Abigail ayaa soo dhacay waxayna u sheegtay in xarunta gudaheeda qof rayda uu khadka ku jiro waxayna isku xidhay wicitaanada labada dhinac Naomi ayaa si toos ugu sheegtay Robert xaaladda oo dhan iyadoo Mike uu banaanka albaabka si xoog u garaacayo kadib markii uu maqlay wax walba Robert wuxuu fahmay in fangasku uu siyaabo cusub u faafayo wuxuu u ballan qaaday Naomi inuu goordhow halkaas imaan doono wuxuuna siiyay talooyin muhiim ah wuxuu si cad ugu sheegay inaysan marnaba taaban fangaska wuxuu amar ku siiyay laga reebo Robert iyo Abigail mooyee inaysan qof kale kala hadlin arrimahan si kastaba ha ahaatee isla markii uu Robert damiyay teleefanka Tierney waxay u sheegtay inay u badan tahay in labadan qof aysan noolaan doonin dhanka kale Travis iyo Naomi waxay ka wada hadlayeen in caabuqa fangaskan loo kala qaadi karo sidii zombiga oo kale laakiin si lama filaan ah waxaa la maqlaa codad ka imaanaya banaanka waxaa caddaatay in Griffin iyo kooxdiisa ay u yimaadeen inay dhacaan xarunta isla markii ay gudaha galeen waxay arkeen meedkii deerada ee dilaacay oo yaala hoolka Griffin wuxuu markiiba qaatay raadihiisa si uu ugu hanjibo Travis isagoo la nacas iyo gabi ahaanba waad burburisay ganacsigayga intaas kadib raggii waxay galeen mid ka mid ah qololka si ay ugu xadaan telefishinno dhanka kale Robert iyo Tierney ayaa ka talaabay xayndaab waxayna galeen guri halkaasoo ay ka fureen sanduuq ayna kala soo baxeen item server laakiin markii ay ka soo baxayeen mulkiilihii guriga ayaa joojiyay isagoo hubsita laakiin wuxuu noqday wiilka Tierney ayaa qancisay oo ku tiri waxba ma jiraan wiilkayga iska seexo alaabun ayaan qaadanaynaa kadib markii ay banaanka yimaadeen Robert wuxuu canaantay Tierney maadaama ay khalad tahay shay sidan u halis badan in guriga lagaga tago laakiin Tierney wax dhibaato ah uma aysan arkin waxayna laabta gelisay Robert waxayna u sheegtay in inta hadhay uu isagu dhameeyo maxaa yeelay uma aysan orod badnayn sidii hore haddii ay raacdana waxay ku noqon doontaa un culays intii uu gaadhiga waday Robert wuxuu la hadlay Abigail wuxuuna u sheegay in haddii uu roobdo fangaskan uu si xawliya u sii faafi doono markaas waxaa dhici karta in joojintiisu ay noqoto mid aan macquul ahayn hadda wuxuu dalbaday marin dayax gacme maxaa yeelay jidhka uu ku jira fangasku wuxuu raadaarka uga muuqdaa mid aad u kulul in ka badan sidii caadiga ahayd laakiin arrintan awgeed Abigail waxay ku khasbanaatay inay la hadasho dad gaara dhanka kale xarunta Travis wuxuu doonayay inuu meesha ka baxo laakiin Naomi way diiday sababtoo ah khatarta banaanka ayaa ka sii weyn arrintan darteed muran ayaa dhex maray labadooda Travis ayaana guuleystay hadda labadooda waxay ka soo baxeen qolkii iyagoo si dhuumaalaysi ku maraya wadooyinka waxay arkeen in jidhka Mike Said isku bedelay in yar kadib Mike wuxuu qabtay mid ka mid ah toogadii ku jirtay qololka wuxuuna ku matagay wajiyadooda isagoo iyagana qaadsiiyay cudurka kadib albaabka ayuu ku xidhay si uu fangasku ula wareego intaas kadib wuxuu arkay Travis iyo Naomi wuxuuna bilaabay inuu eriyado isla markii uu ku soo dhawaaday Mary ayaa xabad kaga dhufatay madaxa jirkiisuna si xun ayuu ugu qarxay dhexda marinka hadda Mary waxay ku sii socotay wiishka laakiin Travis ayaa maqlay codka Griffin sidaa darteed wuxuu u kaxeeyay dhanka jaranjarooyinka intii ay sii socdeen Mary waxay baaskoolada siisay Travis
Travis danka kale Griffin iyo Freedom ayaa u soo baxay inay raadiyaan Travis isla halkaasna Travis ayaa baaskooladiisa tuuray tuugadii banaanka joogtay waxay ka daaleen sugitaanka maanta intii yar ee TV ahaa ayay la tageen intaas kadib Travis ayaa waji ka waji la kulmay Griffin wuxuuna yiri ka fogow jidhka Mike isla waqtigaas gudaha qolka xiran tuugadii cudurka qaaday ayaa xakameyn kari waayay naftooda waxayna si xoog u garaaceen albaabka Travis ayaa isku dayay inuu sharaxo inay aad u xanuunsan yihiin laakiin Griffin ayaa ku adkaystay in albaabka la furo si kastaba ha ahaatee markii Griffin uu isku dayay inuu hanjabo Travis wuxuu ku siibtay dhiigii wuxuuna si khalad u riday xabad taasoo ku dhacday gacanta Travis hadda Travis oo dhaawacanaya si tartiib ugu socday qolka balse intii uu furi lahaa albaabka ayuu xiray ka hor inta uusan Griffin wax samayn Naomi ayaa buufisay qalabka damiya dabka tani waxay sababtay in marinkii oo dhan uu qabsado qiiq fursadan darteedna Travis iyo Naomi waxay ka baxsadeen meeshii danka kale Freedom wuxuu ka daalay Griffin wuxuuna ula baxay qori si uu la dagaalamo laakiin Griffin ayaa feer ku dhuftay isla markii uu arkay kadib Griffin wuxuu ku yiri tuugadii qolka ku jirtay in furiya iyagu hayaan oo ay banaanka u soo tuuraan markay taas maqleen in yar ay albaabka kor u qaadeen furihiina banaanka ayay u soo bixiyeen balse isla markii uu Griffin albaabka furay neefta ayaa ku dhigtay markii uu arkay xaaladda dadka gudaha ku jira Freedom cabsi darteed ayuu dib ugu gurtay laakiin si lama filaan ayuu dhiig ugu siibtay wuuna dhacay hadda fangaskii ayaa soo gaadhay taasoo keentay in isaguna uu qaado caabuqii danka kale mid ka mid ah tuugadii gudaha ku jirtay ayaa yiri waxaan dareemayaa inaan caadi ahay ilbiriqsigii xigana jidhkiisa ayaa qayba u qarxay danka kale markii ay Travis iyo Naomi ka soo baxeen dhismaha waxay la kulmeen Robert kadib Abigail ayaa xaqiijisay in labadooda aysan wali qaadin cudurka intaas kadib Robert wuxuu siiyay qoryo iyo sudadka Hadmas wuxuu u sheegay inay dib ugu noqdaan gudaha si ay u rakibaan item server taasoo runtii ahayd bombo Travis aad buu u argagaxay markuu arintan maqlay waayo muusan doonan inuu dad dilo laakiin Robert ayaa u sharaxay in qaraxani uu ka dhici doono dhulka hoostiisa ayna tahay wadada kaliya ee lagu badbaadin karo adduunka Robert laftiisa wuxuu go'aansaday inuu joogo goobta baabuurta la dhigto si haddii qof cudurka qaba uu soo baxo uu la tacaamulo intaas kadib iyagoo xidhan suudadka waxay labadoodu qaadeen bombadii waxayna aadeen gudaha Robert wuxuu bilaabay inuu jeexo dhammaan taayirada gawaadhida taalla meesha si uusan qofna u baxsan kadib Abigail ayaa u sheegtay in jidhku uu ku soo socdo dhankiisa markiibana Freedom ayaa ka soo muuqday gadaashiisa Robert ayaa toogtay isagoon waqti iska lumin balse u jeesashadiisa lama filaanka ayuu dhabar ku noqday oo dhulka ku dhacay isla markii uu qarxay jidhka Freedom Robert wuxuu sidoo kale rasaas ku furay mootooyinkii meesha yaalay taasi waxay sababtay in meeshaasi uu ka dhasho dabyir danka kale ee jaranjarada markii Griffin uu isku dayay in hubkiisa uu ku xakameeyo asxaabtiisa cudurka qaaday wuxuu maqlay dhawaaqa qaraxa markaas ayuu midkood dib u orday danka kale Travis iyo Naomi waxay gaadheen qolkii qarsoodiga ahaa waxayna arkeen fangaskii inuu hadda ku fiday qolka xiga haddii uu gaadho toonbada xaaladdu aad ayay u xumaan lahayd sidaa darteed aad ayay muhiim u ahayd in si dhaqsaa loo joojiyo fangaska markii ay dhigeen bombadii way naxeen markii ay arkeen in Robert uu hore u daaray saacadda ayna u harsan tahay kaliya 6 daqiiqo si ay u baxsadaan labadooda ayaa si degdeg ah u bilaabay inay u cararaan laakiin saacaddii bombada ayaa cilowday waqtiga ayaana bilaabay inuu hoos u dhaco danka dibadda Robert wuxuu arkay fangas ka imaanaya jirka Freedom oo ku soo wajahan dhankiisa isla waqtigaas Griffin wuxuu mid ka mid ah dadkii cudurka qabay u riixay dhanka albaabka Robert markiiba wuu toogtay wuxuuna sidoo kale isku dayay inuu toogto Griffin laakiin wuxuu u cararay dhanka gudaha si lama filaan wax la yaab leh ayaa dhacay jirkii qofka dhintay ee cudurka qabay ayaa si uu soo toosay wuxuuna bilaabay inuu hadlo tani waxay baqdin gelisay Griffin markiibana xabad ayuu riday wuuna cararay laakiin markii uu Griffin dabcay inuu xabad ku dhufto Robert Tierney ayaa meesha timid waxayna dishay Griffin ka hor inta uusan waxba samayn danka kale wadadii Travis iyo Naomi waxaa ka xidhay qofkii ugu dambeeyay ee cudurka qabay isla markiibana Naomi ayaa xabad ku dhufatay iyadoon ka fikirin labadoodina ugu dambeyntii way ka soo baxeen meesha kadib Tierney ayaa baaskoolad ku qabatay balse Robert ayaa u sheegay in labadani ay ka badbaadeen ugu dambeyntii dhammaantood waxay ka caawiyeen Robert inuu kaco gaadhiga ayay koreen wayna ka baxeen meesha si lama filaan qaraxi ayaa dhacay bombadu waxay ahayd mid aad u weyn taasoo sababtay in dhulka oo dhan uu dilaaco isla daqiiqadaas Naomi ayaa gaadhiga ku wadiyay xawaare aad u sareeya iyagoo ka fakanaya burburka soo dhacaya ay ugu dambeyntii baxsadeen dhowr ilbiriqsi kadib qaraxyadii ayaa istaagay haddana dhammaantood way badbaadeen haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar channelkana subscribe oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan waxayna ku kulmi doonaa muuqaalkan xiga